السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري هذا وقت أكاديمي وقبتنا الصوماليات. فكرة وفكرة أنا سلي هاي واحد بدنا يدي فائدة نتاع أنا أصحاب أونلاين بزنس كحساسة أصحاب حساسة ديجيتال ماركتينج وحاجة التليجرام جروب أنا هالكاس أنا كشر جرينا مستهف سنو فكرتها كساب سنجراسي أونلاين هذا هدي أنا كمد لينك هو سي بروفيل كيانين دقيقة كمد نقطة si aad mar walba aad u hesho xog dhameystiran ku saabsan online businesska waxaan isleenahay waa ugu faa'iideyn kartaan dhalinta ama asxaabta aan halkaasi saaxiibada ku nahay hadaba fikradan waxay tahay fikrad cusub ama hore u jirtay laakiin inaga ahaan waxa jirta hadii jirtana aysan badnayn ama uusan jirin qof ku jira oo hadii ku jirana aysan shaacsanayn oo aan wali ku arag social media ama bulshada dhexdeeda waxa jirta marka in website-da markii la iibinayo sidoo garanaysan waxa la raadiyaa domain kaasi oo la siisto lacag marka business-kan waxa uu la xiriiraa domains sida shirkadaha kale ayaad ka fikiraysaa waxa raadinaysaa magacyo unique ah macnaheedu ay tahay in aad raadiso domains unique ah sida marka domain kaasi waad iibsanaysaa marka waxa raadinaysaa dadkan domainada provide gareeya qiimo jaban xiliyada samarka kale ayaa qiimaha aad loo jibiyaa qiimaha jaban markaas aad ku iibsanayso waxa laga yaabaa inaad ku iibsato $6 $4 $7 ama maxaa la yiraahdaa $5 kadib markaas waxa samayn kartaa in domainkaasi aad dib u iibiso waxa jirta website halka hoos idin soo dhigi doono oo domainada lagu iibiyo marka waxa jirta shirkado badan ayaa markaas hadhow aad u bandhigi kartaa domains kan ay hay'ad dadka waxa jira badan hataa raadiya halkaas domainka marka domainka markay raadiyaan qiimahooda waxa la leeyahay qiimahaas waa intaas waxa laga yaabaa $6 hataa ku iibisay aad hadhow ku iibinayso $20 kadib laga iibsanay sababta domainkan waa unique shirkado badan u baahan baa jirta marka waa laga iibsanayaa adigoo marka hore ku soo iibsaday $6 ama $4 dan aad reseller aan noqoto dib u iibiso waxa jirta website-kan halka hoos idin soo dhigi doono waxa uu iibiyaa domainska xitaa wuxuu burmad gareynayaa oo tusaya dad badan in domainskaasi iibsadaan dan asaga commission ayuu ka goosanayaa dan adiga marka $6 aad website-ki ama domainkeed ku iibisay waxa laga yaabaa inay $25 aad ku iibiso halkaas waxa ku saaran ugu yaraan $19 $20 company dhan baa waxa jira intaas kaliya ka shaqeysto hadii maxaa la raada aan idin sheego xaqiiqadii waa yaabaysan domainada qaar inta la siisto qaar baa waxa la siistaa 5,000 6,000 10,000 15,000 100,000 qaar baa la siistaa $1,000 qaar baa la siistaa $900 hadba waxay tahay domainka unique habka sidoo unique u yahay sidoo baahiyaha maxaa la raada u qabo linkiga hoos idin soo dhigayaa raadiya domains taas laftigeeda waa ganacsi kale oo online ka ah oo aad ka faa'iideyn kartaan oo domain hadda maanta $6 ama $4 ay in yar kaaga bixi lahayd aad adigu kaga faa'iideyn karto aad xogaa aad domainkaas inaad gashato then hadhow dad adi xataa ku anfici kara mustaqbalkan aad u baahato ama inaad sii iibiso dad badan oo ka iibsada sidaas oo kale aad u ganacsan kartaa marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen waxaan jeclahay fikradan inaan idin wadaago haddii aad ka mid ah Telegram group-ka fadlan ku soo bir linkiga hoose profile-ka adaan dhiga asxaabtiina soo share gareeya la wadaaga dhamaantiin waa maasantiin maalin wanaagsan waxaan rabaa marka fikradan in bulshada la gaarsiiyo dadka hore ugu jirana way ugu jiraan in ku baraarugaan in ay online kaasi ama fikirkaasi ay ka faa'iideystaan ama dadka aan ku jirno haddii fikradan imika cusub tahayna qofkii ku dhiiran karo ku dhiirado waxaan hubaa in ay maxaa la yiraahdaa laga iibsan doono ama ay ku noqon doonto ganacsi bilow ah waa maasantiin soo dhawaada dhamaantiin share gala asxaabtiin la wadaaga maalin wanaagsan